31 bishii August ama bishii sideedaad ayaa waxaan ka baxay degmada Doolow Soomaaliya ee gobolka Gedo oo hadda 40 kilomitir ii jirto. waxaan aaday Muqdisho waxaana u socday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Mas'uuliyiinta dowladda shaki hadda ma aanan kala qabin oo aniga ma aanan islahayn wixii lagula dhaqmay hadda lagu sameeyey wax nin sugahayay ma aanan ahayn oo filahayay barnaamijka saas inuu dhacayo. waa ila xiriirahayeen oo way ogaayeen qayb ka mid ah sirdoonka hay'adda nabadgelyada qaranka iyo niman xildhibaano iyo wasiiro ah intaba. kadibna markii aan garoonka aadan cadda tegay waxaa barnaamijku isku bedeshay in lagu qabto meeshaas. markii laga qabtay garoonka aadan cadde dowladda ayaa gacanta kugu dhigtay wixii intaa ka dambeeyey marka maxaa dhacay? horta aniga sidii ninka sargaalka jarnaalka ciidamada isbuucka Soomaaliya ka mid ka ahaa oo bulshada Soomaaliyeed horey ugu cadeeyay xabsi la ima geenin. xabsi waa xarun dowladeed ama station ku yaalo ama xabsi dhexoo dowlad ay leedahay ha ahaato. aniga waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed adiga hadda ay wareysanayo intaba aan u xaqiijiyo aniga xabsi dowladeed ama aan la iibin. markii la qabtay garoonka laga qabtay waxa ay qabtay niman booliis ah oo askar ah iyo niman dharcad oo isla socdo oo ninka dharcadka uu amrahaya ciidanka. laakiin aan fahmi karay ciidanka dowladda inay yihiin cid kaloo hadda meesha soo geli karana aysan jirin. kadib waxaa la geeyey xaafad aada u fog oo dabcan si dambe aan gadaal ka fahmay inay degmada Hurwaay ee magaalada Muqdisho oo area dowladda ay kontaroosho iyo area dowladda inta badan mas'uuliyiintiisa ay tagaanba aysan ahayn. waxaana lagu rajiyey niman dharcad ah qabo laakiin dib aan ka fahmay haddana inay boolis yihiin gobolka qaybta gobolka Banaadir ka tirsan oo General Saadon oo xukumo. muddadii marka aniga 5 bilood oo la hayay maalinba waxaa la geynayay guri xaafad ka tirsan ilaa ugu dambeyntii la keenay xaafadda shubisku ka mid ah. intii muddo oo 7 casha aan ku sugnaa inta kalena waxaa la igu hayay xaafadda Hurwaa guriga ka mid ah oo dad shacabka Soomaaliyeed si bareefad ay u dhisteen. aniga iyo niman askar oo dhowr iyo 10 nin ah meeshaas ayada inta badan way ahayd muddo meesha la igu hayay ma ahan xabsi dowladeed iyo xarun dowladeed midnana. qaabkii la dhaqmay haddii aan ku sheego xaqiiqan askartii haysay waxa xumaan ah oo ka baxsan awaamir la siiyo oo ay fulinayeen oo shakhsiyan ay ugu sameeyeen ma jirin. laakiin xumaan fara badan oo awaamir ah oo askartaas ku socoto oo inay fuliyaan ay ku qasban yihiin baa jirtay. marka xabsi kuma aadan jirin laakiin dowladda ayaa gacanta kugu haysay oo magaalada Muqdisho ayaa dhinac ka degneed. hawla la xabsi aan lagu haynin in gacanta dowladda ku jiro oo dowladda ay hayso laakiin xaafadaha xamar ah marba guri la geenayo oo aan kala isweydiyo waxay ahayd guriga la geeyay baa la ugu hayn karay laakiin ma aysan dhicin. marbo muddo markaan guri ku xirnaado guri kale lagu wareejin jiray oo qof shacab ah Soomaaliyeed si bareefad ah u dhistay oo la sii tiriyay oo qalab la sii dhigay. nolol ahaan meesha aan ku xumaa oo hadda dowladda ugu haysayna ma ahayn meel oo dhib badan ma ahayn markii laga saaro xorriyadda. ma jirtaa marka intii aad gacanta dowladda ku jirtay inaad mar xanuunsatay? way jirtay hawla muddo loo jira xanuunsaday waana dhakhtar la keeno ama la geeyo. nimankaas inta badan awaamirta waxay ka qaadanayeen oo ay qofka ay su'aasha weydiinayaan Saadiq Joon buu ahaa. Saadiq Joon cid uu su'aasha weydiinayay Fahad Yaasiin iyo waxay ahaayeen madaxweynaha dalka xataa ra'iisul wasaaraha ma ahayn barnaamijka shuqulka walayn waxba ka uusan kala soconin wasiirka amniga midnana taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed xataa systemka aan ku xiranay kama soo warramin. gabadha Fuusiya ah oo jarnaalka ah oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ah oo waliba adiga gabar hawreerta anigana labada jeer ay hadashay xataa waxaan rabaa meel aan ku xirnahay iyo waxa aan ku suganahay midna kama soo warramin. barnaamijkii waxa barnaamij kooban oo Saadiq Joon oo General Saadiq Joon oo ah taliyaha ciidanka ee gobolka Banaadir oo ujeedku ay ahayd haynta oo asaga ahayo ciidamadu asaga xukuumay hayaan nimankii aan siyaasadda saaxiibada ahayo siyaasadda ugu haystay oo madaxweynaha uu sareeyay dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha nabadgelyada ee nidaamka kulane. intaas oo ah barnaamijkii dad ku kooban. dabcan su'aasha ay aan weydiiyo ragga aniga markaas iyada gacantii ugu hayeen ayay la aadayeen Saadiq Joon raggaas kaloo la aadayeen mana suurtagelin in jawaab sax ah la soo siiyo nimankii gacantii ugu hayay. raggii ku hayay marka ma kuu sheegana sababta lagu xiray iyo waxa dowladdu ay ka damacsan tahay? hawlaale markii aan muddo 19 casha xirnaaba iyo waxa ii yimid General Saadiq Joon wuxuu ugu yiri wasiir waxaad ku xiran tahay ciidamo gaba jooga oo 1000 askari ah inaad wareejiso dowladda ku wareejisid baan loo baahan yahay saasay madaxda qaranka ku leeyihiin yaa ilaa ku yiri markii uu wuxuu yiri madaxda ku madaxweynaha iyo waxa kula taliyaha nabadgelyada wuxuu yiri waxa wanaagsan aniga maxaabiis baan ahay mana ahan ciidanku shaatigaas intaan gacanta ku taagay katabaan saarnaa waan ku yiri shaatigaas katabaan ka saaran warqad jeedkiisa ku jirta ma ahan waxa la igala hadlayo waa ciidan bilaadan ah. anigana hadda maxaabiis baan ahay. qofka aan telefoonka aan u dirayana su'aasha koowaad uu weydiinayo waxa way aniga waxaan ku suganahay. taas marka waxa ka haboon su'aasha lagu soo dhiibo madaxweynaha uu ku soo dhiibay iyo taliyaha nabadgelyada anigoo xor ah oo degan xorriyadiisa u degan ama hotel ama xarun dowladeed u degan in la igala hadlo laakiin hadda maxaabiis baan ahaan ku yiri. marka sida aad sheegtay waxa laga dalbaday in ciidanka ku sugan gobolka Gada aad dowladda federaalka ku wareejiso.
ciidan daraawiisha oo dowladda jubbaland ka tirsan oo gada jooga inaan ku wareejiyo. waxaa leeyahay hadda maalinkii bishii tobnaad lixdeedii maxkamadda sida ummadda soomaaliyeed loo qanciyey geeyena waxay ahayd waxyaalihii la igu eediyay qayb ka ahayd, laakiin taas waxaan oga jawaabay in ciidankuna aan u hoos imaanin ciidanka jubbaland inay taliyaal leeyihiin soomaaliyeed, saraakiil iyo xukunta inay leeyihiin. dabcan ciidankuna aan xukuminay ciidan ka badan 7,000 askari oo dowlad goboleedka jubbaland ay leedahay jubbada hoose iyo gadaba jooga inay hoos imaadaan wasaarad ahaan. adoo maxabiis ah oo aan xor ahayn haddii lagu weydiiyo ciidan wareeji wixii aad oga jawaabi leed oo fahmaysaa. waxaan ku qanci kara maba ahayn ciidan wareeji. waxaan kaloo fahamsanaa barnaamijka ciidanku inta badan in uu hadal madadaalaha iska yahay, wax ka duwan aan ku xirnahay oo 22 bishii 8aad barnaamijka ka dhacay magaalada Kismaayo oo doorashada ahaa. barnaamij siyaasadeed ku salaysan inaan ku xiranahay baan dareemayay, oo hadaladii maalinkii la qabtay la isticmaala waxaa kamid ahaa in iyadoo leela kaftamayo, Soomaalidana waxay tiraahdaa kaftan waaye dab tagaa, iyadoo leela kaftamayo rayid la isticmaala waxaa kamid ahaa in la iga daba keeni doono madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. intii aad marka gacanta dowladda ku jirtay ma dhacday inaad kulantaan ama aad la kulanto madaxda ugu sarreysa waddanka? may walaal lama dhicin. aniga intii aan gacanta dowladda ku jiray sadawdoon iyo nin sargaal ah oo gole gaashaan letter oo ku xigeen asaga oo ah oo la yiraahdo jeego baa la iisoo diraayo fariimo la igu soo dhiibahayo. fariimaha la igu soo dhiibahayana mid aniga anfacayo ka jawaabi kara ma ahayn. cabdirashiid, muddo markii aad xidhnayd waxaa kuu suurta gashay inaad ka soo baxsato gacanta dowladda, bal waxaad faahfaahin naga siisaa qaabkii aad u soo baxday iyo siday kugu suurta gashay. aad waa mahadsantahay walaalle. xaqiiqiyan barnaamijkaas waqti barnaamij hadda aan rabay inaan la wadaago way jirtaa inaan cidna isinin. aniga system aan isku xirxiray oo rabbi ii fududeeyay aan kusoo baxsaday kadib markaan arkay taboodii aan helay systemka hadda loola dhaqmay gobolka kale dadka ku noolaa, gaar ahaan degmooyinkii Balaxaw, Doolo iyo Luuq, ciidamada daraawiishka Soomaaliyeed oo dowlad goboleedka uu joogay iyo shacabkoodii, in maamulkii gobol heer degmo iyo heer gobol intaba iyo magaalada Muqdisho iyo niman kaloo saraakiil ah in heshiis lala galay in ay dowladda Jubbalandna ay ka tirsanayeenna ay ku gacan seeraan, ciidamadana ay wareejiyaan, cabdirashiidna loo soo daayo. wax kastoo sameeyeenna looga baxay suurtageli weyday, sababtoo ah waa midda aan lahaa ani horaan u fahamsanaa haddii sistamka ciidanka lagala hadlayo sistam ka duwan inuu jiro oo nimankaas saaxiibadooda haysta ujeedkooda ay tahay in ay qadiyad Jubbaland oo ay ka aragti gaar ah ka qabeen ilaa ay xal u helaan inayna aniga isdeenaynin. barnaamijka ii muuqanayay arrintaas markay dhacday kadib oo ii soo baxday in juhdi badan iyo dadaal badan oo aan gelinay gobolkaas ama goboladaas xaqiiqiyan degmooyinkaas aan gelinay, aan fahmay meesha la marinaya. waxaan go-aansaday dowladdana arkay inay ka go-an tahay inaysan isii daynaynin ilaa ay systemka Jubbaland waxay iyadu rabtay ka samayso, oo shacabka reer Jubbaland rabitaankooda iyo waxay dabcan waxa ka duwan oo dowladdu ay rabtay ay ku shaqayso. waxaan go-aansaday inaan sameeyo barnaamijka aniga xabsigan oogana soo baxay gurigii afduubi laigu hayay, baddana aan usoo maray 700 kilomitr aan badda gudaheeda usoo maray. barnaamijkaas go-aanka marka aan qaatay ilaahay waan kala saartay oo rabbina waa ii fududeeyey tabaaraka watacaala. waayahay, markii aad soo baxsatay marka doontii yaa kuu soo kaxeeyey yaase kula socda adigu? walaal doonta niman Soomaaliyeed oo iskale baa ii waday, cidna ima soo raacin, keligay baan ahaa. muddo 3 maalin iyo 2 habeen aan Muqdisho joogay. markii aan baxay kadib waxaa ahayn waxyaalihii igu cagka badnaa. ma aanan islahayn hadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo laamaheeda amniga way ku arkayaan ama waa lagu qaban doonaa. ma aanan ka qabin, ma cabsi ama qabin, laakiin niman aan dirirnay oon fahmayo inay dadkuna saameyn badan ku leeyihiin bay cabsida ugu badneed iyo khatartii ugu badneed oo aan qabay. labadibana rabbi waa iga badbaadiyey tabaaraka watacaala. waxaana ii suurta gashay in xilli maalinimo ah soo raaco doon kadibna aan Kismaayo ku imaado. intii aad xabsi guriga ahayd ayaad ka shaqaysay marka sidii aad meesha uga baxsan lahayd? barnaamijkaas waan ka shaqeeyey, waan u mahad celinayaa intii igala shaqaysay. dabcan hadda qofku keligiis markuu shaqeynayo keligiis wax ma qaban karo, in lala shaqeeyo. dabcan dad unbaa ila shaqeeyey, aan u mahad celinayo shaqadii ila qabteen. horta barnaamijkaas waqti daba dheer iyo wuxuu u baahan yahay aragti fara badan biidn illahi tacaala. waxaana samayn doonaa xilli aan studioga kusoo booqday inaan barnaamijkaas ummadda Soomaaliyeed si maqal iyo muuqaalba ah aan warbixin ooga siiyo dhammaystiran. laakiin barnaamijkaas wuu ii suurta galay, ilaahay baana ii fududeeyey tabaaraka watacaala. anigana dee waxaan ahaa qof aaminsan in la dulmiyey oo dulmi lagu haysto. qofkana mar kasta oo la dulmiyo rabbi wuu leeyahay, rabbina waa u gargaarayaa. marka barnaamijkaas rabbi baa ii fududeeyey, ilaahay baan ku mahadinayaa tabaaraka watacaala. wayna ii suurta gashay inaan xabsigaas ka baxo ama afduubkaas igu hayay gurigaas ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed ay dhisteen ama ka baxo. kadibna 2 maalin iyo 3 maalin
iyo 2 habeen aan ku sugnaado muqdisho waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan la wadaago dadka ay rabaan in ay amnigooda ilaaliyaan oo ay magaaladaas caasimada ah oo maalin kasta dhibaatada ka dhacaysa wax ka qabtaan anigaan cabdishiid ah oo siyaasiga ah oo boqolka calaamadood leh oo la raadinayay oo garoon iyo meel kasta oo gaadiid aan isticmaali karo oo ka baxayaba ciidamo la dhigay 9 saac oo galabnimo ninka barnaamijka ay suurta gashay waaye inaan doon ka soo raaco meel ay ciidamada dowladda ay raadinayay ay joogaan waxaan isleeyahay taas marka aniga cabdishiid qofka qaban waayo ama arki waayo cunug yar oo 20 jir ah ama 18 jir ah oo ummadda Soomaaliyeed dhibaateynayo inuu waxba ka qaban karinna waa mid u muuqanaysa ummadda Soomaaliyeed aan rabaa inaan u muujiyo marka intaadan u soo baxsanin magaalada Kismaayo 2 maalin ayaad magaalada ku sugneed oo dawladuna aysan ku arkin hawlaal 3 maalin baan ku sugnaa muqdisho 3 maalin iyo waxaan ku sugnaa 2 habeen kadib baan doon ka soo raacay ma jirtaa marka in ciidankii arrintan kuu fududeeyay ay kula soo baxsadeen oo maamulka Jubbaland arrintan uu gacan ka geystay wax ciidan ah oo ciidan Soomaaliyeed ah oo dabcan dadkii hayay baad ka hadlaysaa oo kamid ah aniga la socday ama soo raacay ma jiraan dabcan dadkii igala shaqeeyay oo Soomaaliyeed oo ku aan horay erigii ooga mid ahaa inaan u mahadceliyo cid walba ha ahaato ama dowladda Jubbaland ha ahaato ama dowladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin kamid ha ahaadaan ama shacab ha ahaadaan qof kasta oo ay kamid yihiin hataa qolada doonta ka ahayd darawaliinta oo doonta lagu waday qof kasta oo shacab Soomaaliyeed oo barnaamijkaas igala qayb qaatay mustawa kastaba ha lahaadee oo u mahadcelinaya marka qorshahaad ku soo baxsatay waxa sidoo kale gacan ka geystay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka dabcan cabdirashiid marka sideed ugu dhiiratay in intaasoo maalmood aad ku soo safarto badda iyadoon ognahay in magaalooyin ku teedsan xeebaha Soomaaliya ay al-shabaab ka taliyaan intii aad safarkaasi ku soo jirtay maxaad cunaysay intaas badan ku dhex jirnay dabcan wixii aan cuni lahayn aniga nimankii la socdayba waxay ahayd wax doontii noogu diyaarsanaa nin baa dalkiisa asagoo nabad oo wax dhib oo ku qabo usii jirin ka tahriibo dalal kale u tahriibo oo bad intaas 10 kilomitir aado oo wuxuu la kulmahayo aanan ka warramin markii uu baddaas hadduu lacag ka badbaado anigu nin aad xaqiiqan wuxuu loola dhaqmay baan ahaa muqdishona waxay jirtay 500 kilomitir badda inaan ka badbaado iyo meeshii aan marayana rabbi aniga oo 120 casho urkooda ku jirto rabbi ii qoray oo wixii ugu dhacay inaan marnaba ka fiirnin qof muslim aqoon lahaan ahayo waan aaminsanaa in marka aan go'aankaas qaato waxa si ah oo riski ah oo ma arkay inaan badda maro taasna waxay ahayd mid xorriyadiida iyo xaqiiqatan dhibaatada markaas igu hayay aan islaawad uga bixi kartaa markii aad timid cabdirashiid magaalada Kismaayo maamulkii aad ka tirsaneed Jubbaland ay ku soo dhaweeyay kadibna waxa lagu soo qaaday magaalada Nairobi marka yaa ku soo qaaday maxaa lagu soo qaaday walaalow aad baa mahadsantahay waa sax barnaamijkaas inta badan Kismaayo bay ahayd ujeedkii markoobaad inaan tago Kismaayo markaan tago waxaan dareemahay shacab Soomaaliyeed oo mas'uul u ahaa iyo mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo reer Jubbaland ah oo aan isku leeyahay ahayn oo lixdaalo fara badan ay lahaa inay iyo horeeyaan waxay ii muuqanaysay inaysan caafimaadkiisa sax u ahayn in aan magaalada Kismaayo intaan tago aan saacado sii joogo oo shacab iyo mas'uulba maskaxdooda la jaam garan doono sababta markaan u joogay muqdisho 2 maalin iyo 3 maalin iyo habeenka waxay qayb ka ahayd in aan diyaarsado in aan Kismaayo markaan tagabo haddii rabbi nabad igu geeyo inaan kasii baxo oo sababtoo ah markii aan aniga ka baxay meeshii aan ku xirnaaba waan awooday doontii waa ii diyaarsaneed waxaan awooday inaan doontiida fuulo oo aan tago oo isla subaxiiba aan Kismaayo subaxan tagay habeenkeedii aan Kismaayo u hoyday waa awooday sababta markii aan muqdisho u jeedo waxay ahayd ba inaan magaalada Kismaayo oo aan madaxda shacabka Soomaaliyeed u ahay iyo mas'uuliyiintii ila laga ahaa intaba ay joogaan aan ku sii sugnaan karin oo maskaxdayda jaam garan fara badan ay ku dhacayso anana muddo 5 bilood ah dabcan kaligiis meel lagu hayay oo gaarsiin loo diiday telefoon oo dad inay soo booqdaan loo diiday oo TV inuu fiirsado loo diiday oo raadiyo gacan xataa inuu dhageysto loo diiday baan ahaa waxaa marka aan isku xirxirahay muddadii aan joogo muqdisho barnaamijkaas waxaan ii suurta gasho rabbi sidii uu doontii iyo xabsiga igu fududeeyay ilaahay igu fududeeyay inaan maalinkii jimcaha ayaan tegay magaalada aan sii dhaafo barnaamijkaasna waxay iga shaqeeyay dowladda Jubbaland madaxdeeda uu kamid yahay madaxweynaha dowladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxaa jira warar sheegaya in markii aad timid magaalada Kismaayo halkaas ay ka soo qaaday diyaaradda ay leeyihiin militariga waddanka Kenya arrintaa ka waran arrintaas waxaa kuma jiraan walaalay wax dowlad Kenya gaadiid uu leeyahay oo aan isticmaalo aan ku tagay Nairobi ma jiraan